haddaad ururka samatalis ahaan tihiin maanta wixii deegaanka iyo dadka bawdan haddaad ka soo horjeedsanaysaan cid idinkana idin ogolaanaysa ama باقي أجيبه ما jirto kuwani waa arday ka gadoodsan buugaag manhajka Soomaaliland oo koox isbaysatay ay ka hor istaageen waana arday wax ka baratay dugsiyada hoose dhexe sare ee degmada Alleybaday ee gobolka Gabiley ardaydani ayaa cod dheer iyo cod gaabanba waxay u direen xukuumadda garwadooyinka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxayna sheegeen in buugaagtaasi loo soo daayo inay doonayaan isla markaasina waxay noo sheegeen inay yihiin bilaa buugaaga ardaydani ayaa sidoo kale waxay baaq u dirtay kooxda isbaysatay isla markaasina ka hor istaagtay buugaagtii ay wax ku baran lahaayeen maadaama waxbarashadu tahay aasaaska koobaad ee qofku ka dhisan karo heerkiisa mustaqbalnimo ardayda oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaysa ayaa waxay yiraahdeen sida maamuluhu sheegay waxa jirtay buugaag ay soo saareen agaasimaha madaxtooyada Maxamed Injineer Maxamed Cali Bile uu dhalinyarada ka ajiibay uu soo dhiibay waxaana hor istaagay caqabado ama dhalinyaro kale haddaan xaga wana uga faa'iideysanayaa waxaan baaqan u dirayaa cidda hor istaagtay iyo cidda arintan ay khuseysaba horta baahida aan u qabo ka arday ahaan anagoo dhigana ardayda dugsiga sare Axmed Golay Secretary baahida aasaasi aan u qabnaa markaan eegno dugsiyada sare wuxuu ka kooban yahay 4 fasal oo fasalada form 1 form 2 iyo form 3 runtii baahida aasaasi ayaa loo qabaa oo markaad aragto buugaagta manhajku ma yaalaan guud ahaanba degmada xataa meel ay yaalaan degmada ma jirto dugsi kale degmadu leedahay ma jirto buugaagtaas yaalaan marka waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka iyo cidda ay arintan khusayso waxaan leeyahay in buugaagtaas dhaqsaal loo soo gaarsiiyo baahida aasaasi aan u qabnaa fasalada way ka go'an yihiin sida labaadka iyo koobaadka kale form 3 iyo form 4 xogay buugaag yaalaan mooyaan marka waxa la arintaas cid ay khusayso gabiyaanta oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Deeri Axmed Horno waa inaad buugaagtaas degdega mudane wasiir noo soo gaarsiisaa baahida aasaasi aan u qabnaa markasta waxaan ardayda kale dalalka iyo kuwa gobolada kale Soomaaliland ba uga dambeeyna waxa weeyi mudane wasiir waxa weeyaan buugaagtaas oo naga xaniban markaas degdega waa inaad mudane wasiir arinta uga hawlgashaa idinka agaasimaha guud iyo wasiirka xogeenka iyo agaasimaha waaxda daryeelka gabiyaantiinba waxaan arinta idin soo jeedinayaa oo wasaaraddan u jeedinayaa iyo cidda kale hor istaagtayba waxaan ka codsanayaa qof kasta oo ay ku xayran tahay buugaagta dugsiyada dhexe sare hoose inuu yani buugaagta manhajka ahayd ayna oolin magaalada marka waxaan si guud u codsanayaa in buugaagta la soo daayo kan waxa horumarka laga bilaabo waxa weeyaan asaasiyaadka qofku ardayga xaq iyo xuquuq wuxuu leeyahay mar haddii dariiska dawladda xiran yahay una dawlad wax bareefada ah inuu dariiska dawladda xiran wuxuu xaq u leeyahay dawladdu wax kasta oo bixinayso waxa Hargeysa laga bixinaya inuu si toos ah u soo gaaro meel kasta taanaga u hawlgalayna taanaga maxay heeday dadaalkeega wadna haddana qof kasta oo ay u xayran tahay buugaagtaasi waxaan ka codsanayaa inuu si xor iyo xalaal u soo daayo ma fiicna iska dababaxo ay soconaysaan wax iska celiso annaga nama matalayaan wixii go'aankayaga ana ee aan isku soo afgarano anagii ardayduba waxaanu uga tageynaa ilaa heer madaxweyne hadaan ilaa heer madaxweyne aan ula tagno waxaan u baahanahay in buugaagta ardayda waxa jira arday aan heli karin awoodi karin inay buug iibsadaan si ay buugaagta uga faa'iideystaan qof kasta oo buugaagtaasi ay u xeeran yihiin waxaanu ka codsanaynaa waliba si xushmad leh hadda si xushmad leh waliba waxaanu uga codsanaynaa inay noo soo daayaan buugaagta oo ay arday badan oo dayar ka faa'iideysan lahaayeen dad badan oo aan waalidkood waxba haysan ay magaalada ka buuxaan magaalada la iska wada garanayo inta wax haysataaba waxaan u baahanahay 100% in arrinka laga hawlgalo qof kasta shaqadiisa tahayna yaan waxba la isku aamusin qof kasta shaqadiisa tahay waxaan ka codsanayaa inuu arrinka u hawlgalo waxaan halkan ka jeedin lahaa baaq ah wasaaradda waxbarashada iyo ururka Samatalis oo isagu is hortaagay buugaag ka timid madaxtooyada toos uga soo baxday oo uu ku ballan qaaday agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile oo iyagu sheegay inay koota ugu xiran tahay ama iyagu mas'uul ka yihiin deegaanka wax iyaga la soo mariyay mooyee wax kale aan u gali doonin taana waxaan u sheegaynaa inay iyaga ahayn ay deegaanka laf dhabar jab ku tahay oo iyagana aynay wax faa'iido u soo jiidaanay jirin dhalinyarada iyo
ardayda ku midaysan talo wadaag ee ka shaqeeya baahiyaha asaasiga ah ee deegaanku u baahan yahay haday noqoto biyo iyo caafimaad intaba waxaan u sheegaynaa haddaan inteedaas isku dhameystiranahay waxaan u dhaqaaqnay ama aan u kacnay waxa weeyaan muhiimadda ah in deegaankii baahiyihiisii toos loogu keeno meeshii loo geli karayna loo galo cidna aan loo soo marin ururka Samatalisna waxaan leeyahay arrinkiina ama toos uga noqda ama waxaad wadaan idinka aqbali mayno deegaankuna ogolaan maayo haddaad ururka Samatalis ahaan tihiin maanta wixii deegaanka iyo dadka bawdan haddaad ka soo horjeedsanaysaan cid idinkana idin ogolaanaysa ama baaqina ajiibeysa ma jirto ama aynu ka wada shaqeyno danta deegaanka oo aynu meel uga soo wada jeedsanno haddaynu nahay dhalinyaro midaysan oo ururka wada shaqeynaysa aynu meel uga soo wada jeedsano ama is-hortaaga aad sameynaysaan cid ka yeeli doontaa ma jirto dhalinyaro deegaan ahaan iyo gobol ahaanba intaasaan ku soo xili lahaa cidda soo dirtay baaqa noo soo dhiibtay agabka noo soo dhiibtayna waxa weeyaan agaasimaha dalada Soomaaliya oo isagana halkan aad uga salaamayo oo isagu ugu talagalay in deegaankii qalabkan lagu nadiifiyo oo lagu qurxiyo isagana aad baan halkan uga salaamaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ina buwaata soo deysan wassalaamu dhanka kale iyaguna waxa hadalka iska daba maray maamulka dugsiyada kala duwan ee degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley waxayna ay sheegeen in buugaagta laga hor istaagay ay u baahan yihiin talo wadaag mar walba wuxuu ka hadlaa wixii baahiyaha ahayd degmada ka jira haday noqoto xagga waxbarashada haday noqoto dhinaca caafimaadka haday noqoto dhinaca sanitationka iyo haday noqoto dhinaca hawlaha degmada iyo horumarinta waxa weeye ururka talo wadaag wuxuu u taagan yahay horumarinta degmada Allay Baday ururka talo wadaag wuxuu u taagan yahay horumarinta degmada Allay Baday markasta waxaan u heelanahay anagoo isku duuban anagoo isku dhinaca anagoo dhanka wada jeedna inaan horumarino degmadayada haday noqoto si dawladda loo gaarsiin lahaa baahiyihii ka jiray degmada iyo haday noqoto wax dhinac kasta oo ay hawlo ama galdalool ay ka jiraanba waxa weeye waxaan aad uga hadlayaa xagga waxbarashada waxa jiray buugaag soo baxay oo agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile ay wala dhalinyaro khayr Allah siiya ay weydiisteen oo ay ka soo ay u baahnayeen inay ka soo qaadaan waa 600 buug iyaga ka badan oo laakiin adu hor istaagtay waxa weeye ururka hor istaagina khayr Allah siiya isaga laftiisu marka hore waxa urur Samatalis la yiraahdo laakiin in yar oo ka dhacday ayaa buugtaas loo hakiyay waxa weeye buugta anaga degmadii joogna anaga degmadii matala anaga og baahida waxbarashada ah ee taala anaga og siday buugta manhajka buugtu waxay ahayn buug manhaj insha Allah noo dhameystir doona ana aad u qabsanayna in ay baahida iskuulka iyo macnaha iskuulka ka jirto gaar ahaan marka dugsiga Axmed Qaaliban joogno baahi badan baa jirta baahida waxa ku ka buugta marka buugtii soo dhaqsaha baa loo helo waa shay waajib waxa kale oo leenahay tababarka macalimiinta la kulliyo waa shay waajib oo aad aan ugu baahanahay waxa ka jira tusaalahaan oo kale dugsigu wuxuu baahan yahay dayactir badan buu baahan yahay dugsigan Sheekh Axmed Qaaliban wuxuu baahan yahay dayactir fara badan oo xagga deyrka waxa nagu yar galaasida aad iyo aad bay noogu galaaska fadhiyana waxyaaba ardayda galaaska fadhida iyo waxa kala badan galaasidii marka waxaan u baahanay galaasi saydan waan u baahanay marka baahidu way badan tahay lama soo koobi karo marka waxaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxayna yidhaahdeen waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley